si walbo ood adigu isku aragtid oo naftaada ka haysatid ayuu qof walbo bil aadanka arkaa si walbo adigu isku aragtid ninkeyga saan u yiri ninkeyga wuxuu yiri cayilku waa ku quruxsan tahay no adigu naftaada ma aragtaa in cayilku quruxsan tahay caatinimadaada ma ku quruxsan tahay muhiimad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له جواد السلامي ميل بأدون كجوكتان وولاشي نجم MBR هالك دقة دعوانا السنة نجم MBR channel سود وهذا قاعد مفرن قلب فرنية سافئة هذا دقوا عصبتاي channel كسبسكرايب كسار هذا ظهوري إلى جوكتان السود وو إلا من إن فيديو لايك رسان شير رسان هالكاسنا أدوي فكر كاي كومنت قاعد نقربتان عاو حكى هالدنا وحيت هاي سبت كنا قنكرتا مروي شرف له قيمة لأول حيسيو أنا لقى حيس دعين مرنا بقى لقى حيس دعين سبت كنا قنكرتا سبت ku noqon kartaa gabar aan marnaba waxyaabaha qaar aan loo quurin sabab ku noqon kartaa caabo intaas ayaa raba inaan ka hadlo barnaamijka inaan ka hadlano waxa igu qasbay gabdho badan oo walaalahayga ayaa waxay igula soo wadaageen halka Snapchat-ka Instagram-ka ila tali oo ah ninkeyga ay caayo way badan yihiin almost waxay dhaafeen 6 way dhaafeen inta gabar oo ila talida isoo weydiisay nijmu ninku wuu caayo wuu aflagaadiya maxaa sameeyaa ila إن لو أفلقاديو أو لو أفلقاديو وإن هذا أنت لو قلت سوري أباي ويقعد على أنت هي هذا هذا البر اللي جوا عليه نو خوفك بلي آدم هو قلدم كرا ما قلدمه وإلهي أنا بكون مدها لو ما قلدمايا ولو جوا قلدمايا إلهي جاء الدون كان كان صدي نا أبوري أيو آدمك بحسن واي وإلهي والد عليه إلهي وحبود على قرايه قالد واد aragteen waa lagu qaldamaya ma diidayo shaqsiga alan oo shahay haduu kugu qaldamo waa inaad tahay gabar madaxeeda kor u taagan yahay qaladkaas iyada ah oo aflagaadada shaqsiyadaada ah markay imaato waa inaad ka guguban kartid ilma ka fikraya xaga laga soo maraa bay soori barraqa lagu dhahayaha tiri caaydi way sii soconaysaa qiimahaaga qofka bil aadanka markuu garanayo waxa waaye markaad qiimahaaga u dagaaltantid markaad sharaftaada u dagaaltantid qofka bil aadanku ku ixtiraamaya marka lagu aflagaadeeyo oo intaad gambar yar ku fadhiisato sababtaas iyada ah aad qofkaasi aad ku kallifin inuu maalin dambe waxaas wax la mid ah inuu soo kusoo noqonin uu ka shalaayo inaad gaarsiiso adigoona gurigaada burburinaynin adigoona caytamaynin adigoona gacan qaadaynin adigoona aflaga doonaynin laakiin qofkaas you have to inaad qaladkiisa tustid ha cabsanin cabsida gabdhaha Soomaalida ay qabaan waxa waaye ama lagu furaa no qofka bili aadanka haduu ka qaldan yahay waa inaad iska la hadashid قيم أوجو سئت كنا قتل مروي شرف له الله احترام الله ريسبكت جريو وين شرفت هذا ودقالت انت مدك وين تهاي جبر attention كده تشوفه وين تهاي جبر جوري هذا كبر حيسو لقيه هذا تاجني هين مسكح هذا تاجني هاي عقل هذا تاجني وين تهاي جبر جوري هذا ما أنت شمبرير هذا يسأكل مرت كبر حيسو وين تهاي شمبرت الدولدولة كما وضده وفهم كرتين وين تهاي قبر جورجيد معناها كور هايس وحي كدعايو وحودن information ودن وين تهاي قبر كور هايس ilmaha ninka wax kasta nafteeda وين تهاي قبر كور هايس هنقولين قبر iska jiifto sida cambadi meel la dhigay gabadha baarixiga ah ee qabowga ah ee ma aragtay meeshu waaga ugu bariyay taagan aan aqligeeda iyo maskaxdeeda aan shaqeyneynin aqligeeda ama maskaxdeeda noqotay inay wax cunto wax cabto ilmahaasi cunto yar u karisan noqotay inta badan waa la bahdilaa waana la dhibaateeyaa laakiin gabadha qaylida badan oo aflagaadada badan oo indha cadeyska badan oo maarta kabta tuurta dacaska tuurto awooyay qabriyada ku jira soo kicisana no good gabar fiican ma ah wanaad tahay gabar dhaxdhaxaad ah oo kul ah oo degan oo dhinacna romantic ah dhinacna maartay hooyo wanaagsan ka ah dhinacna maartay ma sha Allah tabarakallah oo furfuran waynaad tahay oo happy tahay waynaad tahay gabar aan afkeeda
markii hadlayso aan isir iyo ab aan caynin wayna tahay si adiga lagu ixtiraamo wayna tahay gabar nafteeda ku mashquulsan danteeda taqaano haddaad wax barin waxbarashada ku noqo shaqayso telefoon la baare iyo faaraxa inta ka baxay iyo caliya inta ka baxay iyo caasha inta ka baxday iyo waa saan iyo waa kan iyo bariyaal iga tagayaa iyo waa bariyaal yeelayaa iyo intaad ka baxday iyo waxyaabahaas ku mashquulin naftaada ku mashquul haddaad aragtid wixii markaas oo shaki ah waxaa jiro maskaxdaada degan aqligaaga degan waxa u baari kartaa haddaad aragtid inuu lagaa qaldan yahay ha aamusin ha iscaburinin waxyaabaha maanta gabdhaha baraha bulshada keena ay la oynayaan mal hore isu soo caburiyeen caburka qofka asagu dilaa aduu ku dil ha iscaburin hadal nafis haddaad aragtid in lagaa qaldan yahay hadal waad iga qaldan tahay waxaas igu subsay iga soo garbax you have to inaa hadashid hadalkaa isku reebin hadal caafimaadkaada quruxdaada fitamiinadaada adduunkaaga qaado waxa kastoo aad aragta ha isku mashquulinin noloshaada wax walba ood qabanaysidna make sure inay naftaada ku faraxsan tahay wax walba ood sameynaysid number 1 naftaada ma ku faraxsan tahay that is important waxaan aniga aan sameynaa oon qabana aniga nafteeda ma ku faraxsan tahay taasaa muhiim ah gabdhaha Soomaaliyeed hadday iscadeynayaan ninba isku cadeynayaan gabar waxaad arkaysa overweight ah oo dhaqaaqila haddana kule aniga ninkeygu wuxuu yidhaha sidan aan kugu jeclay no overweight kan aad tahay adigu ma isku jeceshahay that is important caatanimadan wiliqa aad wadatid adigu ma isku jeceshahay si walbo ood adigu isku aragtid oo naftaada ka haysatid ayuu qof walbo bili aadanka arkaa si walbo adigu isku aragtid ninkeyga saan u yiri ninkeyga wuxuu yiri cayilka ku quruxsan tahay no adigu naftaada ma aragtaa in cayilku ku quruxsan tahay caatanimadaada ma ku quruxsan tahay muhiimadu waxaad adigu ku qanacsan tahay waxaad adigu ku qanacsan tahay cunto healthy la cun exercise-kaada samee markaa ka gaartid niyadaada daji stress free laga furayaa iyo ilmaa kaligaa korinaysaa iyo bari haddii lagaa tagay iyo naagan oyni barkintay maaragtaay naagan oyni ilmo ma korsatay iyo ilintaa barkinta la buuxiyaa iyo waxaasi dharaamadaas Soomaalida waxaas iskugu sheekaysaa noloshaan waa la nolol ee labadan qof bili aadanka ay isku darsadeen qof walba asagoo raali ah buu shalay gurigan imaaday qof walba asagoo raali ah ayuu shalay guurkan soo galay maantana waa in ay wada raali ah in la isku la dhaqmo oo qof walba xuduud uu leeyahay qofka kale xuduudkiisa lagu gudbin xornimada laga qaadin qiimahaaga aadan iloobin dadnimadaada aadan iloobin quruxdaada aadan iloobin qiimahaaga qaayahaaga aadan iloobin oo sidii saawirka aad qof bili aadan daba taagnaanin that's important ina fahano